madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shir gudoomiyay kulan gaar ah oo ku saabsanaa dib u eegista dastuurka oo ay ka qayb galeen gudoomiyaasha labada gole ee baarlamaanka iyo madax kale sida faafahinta warkan uu ku eegayo Cali Baashi. kulankan uu shir gudoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa looga hadlay qaabka ugu wanaagsan ee loo dardargelin karo dib u eegista dastuurka kumeel gaarka si loo dhameystiro ka hor dhamaadka sanadka 2018. kulankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ayaa waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaasha golayaasha baarlamaanka iyo aqalka sare kusimaha ra'iisul wasaaraha wasiirka dastuurka guddiga la socoshada dib u eegista labada aqal ee dastuurka iyo guddiga madaxa bannaan ee dastuurka iyagoo si wanaagsan uga hadlay sida looga miro dhalin karo dib u eegista dastuurka. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in hay'adaha dastuurka dalka looga fadhiyo in hab iskaashi ah looga miro dhaliyo hawsha dib u eegista dastuurka si shacabku codkooda wax ugu doortaan mustaqbalka dhow. kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Mahdi Maxamed Guuleed ayaa shirkaas kadib nuxurka la wadaagay warbaahinta. waxaa lagaga hadlay arrimaha muhiimka ah ee dib u eegista dastuurka oo ay ka mid tahay in habka federaalka hore loo dhaqaajiyo kala xadeynta awoodaha dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada mideynta dastuurka ee dasaatiirta heer federaal iyo kuwa dawlad goboleedyada nidaamka booliska ee federaalka ah nidaamka garsoorka ee federaalka ah doorashooyinka hal qof iyo hal cod dhamaystirka shuruucda suurtagelinaya doorashooyin xor ah sharciga nidaamka axsaabta sharciga jinsiyadda sharciga diiwaangelinta muwaadinka iyo sharciga diiwaangelinta codbixiyaasha waxyaabahaas oo dhan waxay hoos imanayaan dastuurka dib u eegistiisa hirgelinta qodobada aasaasiga ee 133 iyo 134 iyo ugu dambeyn in la yagleelo heshiis siyaasi ah oo marka la dhameystiro waxyaabahaas oo dhan gundhig u noqon doona. waxaa la isla gartay in loo baahan yahay in shaqada lana qaybsado haddana qorshe hawleed dhammaystiran la soo bandhigo uu ka soo baxo waxa afka qaraad lagu yidhaha road map midaysan oo ay ku wada shaqayn doonaan wasaaradda dastuurka guddida madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka iyo guddida madaxa bannaan ee labada aqal ee sharci dejinta ka kooban oo iyaguna qayb weyn ka ah saddexdaa guddi iyo xafiiska madaxweynaha oo madaxweynuhu yahay ilaaliyaha dastuurka hormuud oo hoggaan u ah iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda dastuurka kulligoodba waxa ay soo bandhigi doonaan muddo 10 cisho gudahood ah qorshe hawleed tafatiran oo sida loo shaqaynayo iyo sida lagu hirgelinayo dib u eegista dastuurka oo dhammaystiran ugu dambeynna ay tahay sanadka 2018 dabayaaqadiisa in laga shaqeeyo dastuurka oo dib u habeyn lagu sameeyay si tafatiran looga shaqeeyay. dib u eegista dastuurka kumeel gaarka ee dalka waxa uu ka mid yahay howlaha hortabinta leh ee hor yaalla dawladda federaalka ee Soomaaliya. 2012 ayaa la go'aamiyay in dalku uu ku shaqeeyo dastuurkan qabyada ee kumeel gaarka ah kaasoo meesha ka saaray nidaamkii axdi qarameedka ee lagu soo dhisayay dawladihii kumeel gaarka ah ee burburkii kadib dalkan loo yagleelay. tani waa fariin cad oo muujinaysa in dalku u baahan yahay in dastuurka dib loo eego afti qaranna la geliyo si dalku nidaamka xilligan marka uu dhamaado uu ugu dareero doorasho qof iyo codkiisa. Cali Baashi Cabdullaahi warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.